ومناسبة بلادن oo lagu shaacinayay murashaxnimada Aamin Saleebaan Jaamac oo u taagan doorashada golaha wakiilada Somaliland ee gobolka Togdheer. Munaasibadan oo si heer sare ah loo soo agaasimay oo ka qabsoontay Hotel Daalo ee magaalada Burco ayaa waxa ka soo qayb galay dadweyne tiro badan oo ay qayb ka ahaayeen mas'uuliyiin, culimo awdiin, madax dhaqameed, ganacsato, aqoon-yahan, haween, dhalinyar, mudan iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn waxa ay furay ujeedada munaasibadan Chief Caaqil Axmed Maxamed iyo Caaqil Faysal Xaaji Cali. halkan waxaan uga ducaynayaa Ilaahay inuu xilka ku asturo oo uu noqdo mid ummadda u shaqeeya oo cadaalad ugu shaqeeya ayaan asagana Ilaahay uga rajaynayaa guushaada qaado ambiyow qaado wadaalisa Allah ku diro Allah ku waafaqo dadkiina wax ku taro kii wax ku taranaqo mas'uuliyiin uu ka mid yahay maayir ku-xigeenka Burco, madax dhaqameed, mudan iyo marti sharaf ka hadlay madasha shaacinta murashaxnimada Aamin Saleebaan Jaamac oo u taagan doorashada golaha wakiilada Somaliland ayaa soo dhaweyn iyo taageero u muujiyay. waa loo duceeyay in Ilaahay uu soo saaxo xilka uu ku aflaxo markuu ku aflaxana in Alla ku alaamiyo qabyal baan ugu salada qabyal daan oo noqdo xildhibaan u shaqeeya qaranka Soomaaliya inay u sameeyeen waxaan leeyahay musharaxa soo dhawow waxaan ku soo dhaweynaynaa la furan qalbi fayow iyo farxad waa u ducaynaynaa waa soo dhaweynaynaa waana la soo xuray waxa weeye odayaashii hore guur jiray ka buuxi jiray baarlamaanka noocaydii bay ahayn oo waa laga guuray dhalinyarada laga dhigayaa imaka haddii Ilaahay ka dhigo Saleebaan kulul runtii waa muwaadin wax badan qabtay inankiisana saasoo kale baan u jecelahay aanu ka rajaynaynaa inuu wax kasta qabto Togdheer u qabto Somaliland u qabto heerka u qabto aan taasaan filayaa insha Allah waxaan leenahay xilka Allah ku fududeeyo Allah ku fududeeyo waxaan rajaynayaa inay ku daydaan dadka kale ee anaguba ka mid nahay inay Aamin oo kale soo xulaan soo qoyska iyo degmada iyo gobolkaba iyo Somaliland oo ugu taro qabiilka soo saraxay ee keenayna waxaan leeyahay haddaan wada dhalan warma hawl dhigan haddaan wada dhalan warma hawl dhigan warwareegaya waa bashow dhibay guulayso 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 in kaarka la qaato dhalinyaradu kaarka qaadato isticmaaliso kuwa ka lumay soo qaato kii haysto xifdiyo marka diiwaangelinta la galay ee kaarka la qaato in ninkaa la soo saaro oo loo codeeyo Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu soo baxo waa soo dhaweynaynaa waana maxay ahayd hambalyeynayna si musharaxeena aynu soo saarno maalinta runtii codeynta waxa ugu muhiimsan ee ugu weyn waa kaarka ugu codeynayo inuu helo kii uu ka lumay inuu raadsado kii uu meel kale kaga jiro waa inuu doontaa kaarkaas muhiim ah insha Allah waxaan rajaynayaa inay runtii aad qaadan doontaan soo saari doontaan hal duco ayuu marfarayaa in Ilaahay ku guuleeyo xilka doorashadii bay lagu soo dhow cidda kaliya ee maanta wax soo saari karta waa haweenka iyo dhalinyarada ayuuba wax soo saari kara iyaga waxaan dardaarmaya inay qaataan kaarka codbixinta maanta xildhibaan Aamin Saleebaan Jaamac Rooble waxaan oran karaa haddii uu caawa jiri lahaa qof reer Burco oo loo soo taagi lahaa in qarankan Jamhuuriyadda Somaliland meesha sharciga loogu dejinayo uu dhex tago in caawa loo dooray qofkii matali lahaa gobolka Togdheer xildhibaanada ka soo baxaya xildhibaanka reerkiisu uu magacaabaya laakiin qaranku matalaya qaranku sharciga u dejinaya waa inuu aqoontiisii iyo kartidiisii iyo dareenkeedaba leeyahay ugu dambeyn Aamin Saleebaan Jaamac oo u taagan doorashada golaha wakiilada Somaliland ee gobolka Togdheer ayaa uga mahadnaqay dadweynaha tirada badan ee taageerada u muujiyay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dadweynaha sida sharaf leh oo qurux badan oo ka soo qayb gashay xafladana caawa
ay tahay tii musharaxnimadayda golaha wakiilada ee Soomaaliland marka waxaan iga rajaynayaa oo aniga codsanaya inaad codkaysiisaan codka ma isiinaysan diiwaangelintii baa hadhay diiwaangelintii way soo dhawaatay waa bishan dhammaadkeeda waxaan iga rajaynay wixii nabeena diiwaangelisan oo kaarka qaataan waa fahmi kaysa xirsi bulsha TV burco